سؤال راعده بينك ويدير ربا أو دانك ما دام الصحفي أنا هاي صحفي كلا بينكي سوغا وهايا أن محكمة مقالة هرقيسة وحي دوان كحكمتي وري أردون أو سمفلا مدة بسنة أن طبعا قيبتي قرصور كسوق لها يا شروط دي ياوي أن وري أردون حرقيساسي كقدوميان سيدو أركتا محاسة صوبي إن مدة بسنة لو حكمي إن تمر نشتكي حدنا كسور نقضي aad bay ula xidhiidhaa su'aashii hore horta marka hore anagu maadaama aanu imika garsoore ahay oo maxkamad ka yimi dadka dhex baan u nahay coldoon markaan si background ama brief yaro fiican adigi iyo dadweynaha daawanaya ka siiyo waa la eedeeyay booliiska qabtay dadna waa la soo eedeeyay waxa lagu eedeeyay dadku waxay isku khaldayaan intaan halkan imika joogay London intaan UK joogay baa go'aan kala soo saaray maxkamadda waxa lagu soo eedeeyay dambi la xiriira saxaafadda lagu soo eedeeyay in wax qoray ama wax saxaafadda la xiriira waxa lagu soo eedeeyay dambi la xiriira inuu qarannimada ka soo horjeedo oo coldoon oo kale imika maxkamad furan buu helay wuu isdifaacay waa maxkamadda aan ku sheegay furnayd mala 200 qof in ku dhawaa dhageysanayay waxa la wixii cadeynay loo haystay wala soo bandhigay fiidiyoya xataa la soo bandhigay marka ninka coldoon oo kale waxa lagu soo eedeeyay dambiga la yiraahdo waa dambiga qarannimada ka soo horjeeda oo waxa lagu haystay in tanaan ku sheegayo inaanu muqdisho tagay lagu haysan ama muqdisho booqday lagu haysan ee inuu waday abaabul arinta qarannimada xeerku mamnuucay inuu dadku ku dhiirigelinay qarannimada ka hor yimaadaan inay Soomaaliland difaac gareeyaan inuu dadka kiciyo wali waxa kale raacaysay oo lagu sidii lagu soo eedeeyay sidii lagu soo eedeeyay waxa kale raacaysay in wadogto imika adduunyadu colaadaha ka jira nabadii baa la dhisaya wadamada jaarka wuxuu doono difference-kooda ha noqdo waa inay si fiican wada noolaadaan Soomaad fahmin abaabulo badan oo inuu galay inuu dadka ku kicinayo wadamo jaarka oo ku kicinay marka muqdisho tagay ama cid buu jeclaaday ama meel buu booqday eedii la hor keenay maxkamadda ma ahayn waxay eed dadna video la soo bandhigay isagoo hadlaaya isagoo abaabul galaya isagoo qodobo qarannimada ka soo horjeeda dabad anagu hadaan maxkamadda maxaan sameeynay booliiskii iyo xiraantu waxaan ku niri cadeeya isagana waxaan ku niri lawyer la isdifaac dhowr lawyer ba difaacay maal intaasoo fadhi baa dacwadiisa la qabtay maxkamaddu way furnayd intaasoo observer baa daawanayay cadaymi la soo bandhigay aanu halkan baan joogay gudoomiyaha waliba maxkamadda gobolka Hargeysa maadaama dacwad xasaasi ahay gudoomiyaha maxkamadda gobolka Hargeysa dacwada laftigiisu garsoore ka ah dhinac kasta uu ka eegay cadaymi baa la dhageystay waa la eegay waa lagu helay marka lagu ma helin sida nimanka ama loo dhigay ama u muuqato waxa lagu helay ma aha muqdisho booqday ma ama muqdisho tagay ba wixii lagu eedeynayay laakiin dambigii state ka soo horjeeday ee qarannimada Soomaaliland ka soo horjeeday ee dadka uu kicinayay ee uu lahaa qarannimada diida ee uu lahaa ma garanaysaa kaca ee wadamada jaarka dadka ku abaabulay uu lahaa maxay heeday ayaa lagu helay maxay imka u furan maxkamadiisu may dhamaanay rafcaan baa u furan hadii aanu ku qanacsanayn maxkamadda heerka labaad ee gobolka Hargeysa ayuu rafcaan u qaadanay ay hob inay looyiridiisuna u qaadeen ilaa maxkamadda sare uu soo gaari kara wali dagaal sharci baa u furan laakiin horta anagu maadaama maxkamad ahayn eeda lagu soo eedeeyay eedaas ahayd ma yahayn muqdisho mutag ma ahayn waxa ay dambi ka dhalan qarannimada Soomaaliland anagu sida sharcigu sheegayo waxa la yiraahdaa qofku waa dambi laawe ilaa dambiga lagu cadeeyo laakiin imika maxkamadda gobolka Hargeysa dambigii bay ku heshay isna xaq rafcaan buu leeyahay dambiga lagu eedeeyna ma aha muqdisho tag ma aha cid buu jeclaaday ma aha xitaa dadka qaar baa xidhaadeen farmaajo amaanay xitaa tama waa crime ka soo jeeday qadiyada iyo qarannimada Soomaaliland baa lagu soo eedeeyay cadayma lagu soo bandhigay saan sheegay maxkamaddu way furnayd waa lagu helay imikana wuxuu leeyahay xaq rafcaan ilaa maxkamadda sare u socon karo in kasta xukun ku dhacay hadana rafcaan u qaadan karo